بسم الله الرحمن الرحيم أو أحكبرنا ويدينتن what is a mutual fund waxaan ku qeexi karnaa mutual fund inay tahay qayb ka tirsan noocyada maalgelinta waana nidaam lacag looga soo ururiyo maalgashato kala duwan si lacagta loogu maalgeliyo meelo kala duwan sida dhulalka dhismooyinka saamiyada iyo wixii la halmaala lacagta lagu maalgelinayo meelaha kala duwan waxaa maamula dad aqoontooda leh ama institutional investor معناها institutional investor هذا كور أيان كسو هذا اللي يفضل كده يسول فاقوسي go-aanka meeqa lacag ah ayaa lagu maalgelinayaa hanti cayiman sida dhul oo kaleeto ama saami waxaa go-aanka gaara institutional investorka ama dadka kale ee maamula maalgelinta si aan iskula fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan aan dhahno waxaad rabtaa inaad maalgashatid suuqa saamiyada balse ma haysatid waqtigii aad kula socon lahayd maalgelintaas khibradii loo baahnaa iyo walibana lacag xoogan oo aad maalgelintaadii ku kala duwi kartid ama diversification aad ku samayn kartid maadaama intaas kor aan ku soo xusnay aanad haysan waxaad go'aansatay inaad maalgashatid mutual fund waxaadna ku maalgelinaysaa mutual fundkii lacag dhan $1,000 waxaa kaloo kugula jira maalgelintan dad kale ayaa iyagana sidoo kale lacagtoodii ku maalgashtay mutual fundka lacagtaas kala duwan oo aad qayb ka leedahay ayaa maamulka mutual fundka iyo dadka kale ee u xil saaran maalgelinta waxa ay gadayaan dhulal saamiyaal iyo hantiyaal kala duwan wixii faa'iidaha ee ka soo baxana marka laga jaro qarashaadka kala duwan waxa haraaga loo qaybinayaa maalgashatadii oo aad adigu ka tirsan tahay ayadoo loo fiirinayo qof waliba inta uu maalgashtay gunaanad mutual fund waxay u suurtagelisaa maalgashatada xitaa haddii ay lacag yar haystaan oo kaleeto in lacagtooda loogu maalgeliyo meelo kala duwan si loo yareeyo khasaaraha iman kara loona helo faa'iido mutual fund waxa ay ka mid tahay shirkadaha maalgelinada ee ka dhiman waddankeena ee u baahan in la soo saaro sharciyeyn ku munaasab ah si ummadda lacagtooda loogu ilaaliyo sidoo kalena loogu maalgeliyo micnaha diversification fadlan ka dhigayso lifaaq hoose oo aan hadda koor uga soo hadalnay mahadsanidin waa inuu markaa haddii rabbi idmo